wuxuu qayb ka ahaa safarro guddigu uu ku kala bixinayo dhammaan dowlad goboleedyada si loo aasaaso xafiisyadii guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedyada iyo sidii looga wada qayb qaadan lahaa dadaalka loogu jiro in dalka Soomaaliyeed la gaarsiiyo nidaam asxaabta ee ku dhisan doorasho qof iyo cod ah loogana guuro oo looga sii siqo nidaamka 4.5ka ama 4.5 ilaa 2000 markuu sanadka ahaa aan ku soo dhaqmaynay inana soo gaarsiiyay heerka aan maanta joogno. waxaan rajaynayaa in sidoo kale aan tagno dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo aan ka qayb galino dadaalka lagu gaarayo hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee sanadka 2020. guddiga ujeedadiisa ugu weyn waxa waaye wadankan inuu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah doorasho awood u siinaysa shacbiga Soomaaliyeed ama qofka shakhsiga ee shacbiga Soomaaliyeed ee gaaray inuu cod bixiyo in awoodii asaga gacanta loogu soo celiyo si uu u doorto berri cid u talin doonta ama hoggaanka siyaasadeed u qaban doonta dalkaaneeto. waa awoodii oo koobneed laakiin hadda la ballaarinayo oo ummadii la gaarsiinayo. guddigan si qaran uu u xilsaaran yahay arrimaha technicalka siyaasiyiinta waxay ku soo heshiiyaan ay dhigtaan oo xeer ay ka dhigtaan oo shuruuc ka dhigtaan oo constitution ka dhigtaan aan raacayna oo fulinayna mana aha arrimaha siyaasaddu inay hakad geliyaan arrimaha technicalka ah. siyaasiyiintu waa isu imaanayaan waa heshiinayaan Soomaaliya leeyahay lama kala tagaa meelna uma kala socono hadday tahay waliba hadday u sii daranto arrimaheena danaheena inay isku soo dhawaadaan oo meel la wada keeno ay tahay